وريا أنيق أوكيالها إيجلي وريا دخل سجال شقالة إيجوجي وريا أنيق 8 شقالة إي أديجو وريا أنيق لاندير بنان دجان هاي وريا أنيق هير اللي تكمسو جيدو قبل يرير أو يلو كل نيكنايان دبض وغني كنايان وحيالها سكلات وحيالها اللي ذي يالو أو معني قبل يرير كان لقوا سمين أيو أو نمك وضمد الشيء كي مالين أو وضمد الشيء العكت ككينن قبلها نكوبا بإنايان إن لقوا هرتقو أو معنيه كرباش كأ ويلال يرير قبل يرير أو صدق حماء وسمين أيا وحيالها قار رنكشة لفتان كأكله معنيه السحابي سود وهذا شير قرية muuqaal kan waxaan idin ka rabnaa 1 milyan inaad gaarsiisaan miskiinada waxay igu baxday dhalinyarada ay bixisay baraha bulshada ku jirto yaa miskiinada ay bixisay waxay miskiinada igu bixisay waxaan idin sheegayaa oo kaleete aniga macnaheedu qof baraha bulshada ninka raadinaysa aniga ma ahay 20 jir mutacaafiya oo lixdiisa lixaad kaamil ay tahay oo aniga ilaahay qabiilna laan dheeranimo meel u dhigay dadnimana meel u seexiyay baa aniga qaba been ma sheegayo markii horeysana baraha bulshada 20 jir inaan ka raadinay dadka aamineen laakiin waxa ma jiraan asxaabay soo dhawaada meeshan waxa waaye ayaamaha waxa ku soo badanaya baraha bulshada macnaheedu waraysiga wuxuu ahaa gabdhaha yararka oo arooska loo bilaabayo oo arooska maxaan ku raahdaa ee ka bilaabayo dhunkashada iyo leefitaanka ka bilaabayo waxa waaye waana waaleen dhaqankii hore waa naga bedeleen dhaqan horaan haysan jirnay dhaqan horaan ku xarakoon jirnay dhaqamo horaan lahayn dhaqamada hore aan lahayn waxay ahaayeen dhaqamo sharaf badan oo aad u macaan oo macnaheedu aad iyo aad u qadarin leh oo dadku ay jecel yihiin oo aad ay u jecel yihiin waxa weeye asxaabay waxaan idin sheegaynaa ayaamahan dabsaarku wuxuu ku bilaabanayay uu ku dhamaanayay waxyaalaha qaar macnaheedu dadka ay aad u neceb yihiin oo diintuna ay sajaclayn ba dadkii lagu la dhaqaaqaya niman iyo naaga isku niikinaayo niman isruxaayo naaga niikinaayo iyo niman niikinaayo nimanka niikinaayo iyo naagaha niikinaayo annaga aadaan ugu xunnahay waxa waaye diinteena ma jecla annaga ma jecelin waxyaalo fikradeena aan macnaheedu aad ugu gubanayna jirto oo aanan jeclayn oo aan lagu soo korinin lagu soo dhaqin aanan ku soo dhaqmin dhaqan aan soo qaadan aysan ahayn waxa weeye waxaan lagu dhalay diin waxaan ku dhalanay diin waxaan ku dhaqmanay diin waxaan macnaheedu sameyn jirnay wixii xaawiye aadan laga soo gaaray waxa waaye baraha bulshada ayaantan waxa ku badanayay gabdho yaryar oo wiilal ku niikinayaan dabada uga niikinayaan waxyaalahaas oo kaleete hooyada iyo aabaha ma jecla barnaamij la jecel yahay ma aha annagana ma jecelin waxa waaye waxyaalihii hore ee dhaqankeena hore ahaan jiray dib ha loo soo celiyo dhaqankeena hore yaan laga tagin dhaqankeena hore dib ha loogu laabto waxyaalaha qaar niman iyo naago waxaan arkayay markay ciyaarayaan fotoda isku ruxaayo wax la isku ruxa maaha waxay diinta jeceshahay maaha wax la jecel yahay maaha waxay muslimiintu jecel yihiin maaha waxna lagu dhalay ama aan ku dhaqmanay ama lagu soo koriyay midna ma aha wax diinta ka baxsan baan ayaamahan baraha bulshada ku arkayay arooskii aan tagaba ama la iiga yeeraba waxaan arkayay wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo si dhaqan xumo ah u sameynaya waxyaalaha qaar dhunkashada leefitaanka oo kale macnaheedu waxyaalahaas waxaan rabaa maamooyinka iyo aabayaasha dadkaas dhalay inay ka hadlaan arrimahaas oo waliba si fiican jawaab fiican ka bixiyaan waxyaalahaas waxa keenay dadka qurbaha ka imaanayo iyo waxa keenay dadka dhalinyarada ah ee macnaheedu heesaha raabka ku tumanaya heesaha raabka dhibaatooyin badan ay leeyihiin wax badan ay leeyihiin oo dhibaato ah gabdhii yaryarka ah way yaryar yihiin waa ilmo yaryar waa ilmo soo koraayo waa ilmo maskaxdooda ay yar tahay aysan qaadan karin matoor ka weyn baa la saarayaa hadda waxaan rabnaa karbaashka noocaas in laga joojiyo baraha bulshada mana ku taageersanin mana jecelin hooyooyinka iyo aabayaalka dhalay waxaas sameecadaha ay ka dhageysanayaan iyo waxa lagu dhaqmaayo dhan hala joojiyo waxa waaye diinta yaan laga tagin dhaqanka yaan laga tagin dhaqankeena hore ha loogu socdo marka soo dhawaada gabdhaha waxaan ugu talagalay macnaheedu waa gabdho yaryar oo soo karaayo waa gabdho yaryar oo macnaheedu maskaxdooda ay yar tahay yaan maskaxda laga qaldan muqaadiraadka meelaha qaarkood lagu siinaayo iyo biyaha iyo cabitaanada iyo waxa la siinaayo dhan maxaan ku raadayay annaga ma jecelin mana jeclaysan doono waxaan jecelnahayna ma aha waxa weeye waxaan u sheegayaa warbaahinta sharafta leh ee qiimaha leh ee qaayaha leh inay hore looga gudbo arrimaha qaarkood waxyaalaha liida yaalo oo macnaheedu gabdhaha yararka lagu sameeynayo oo nimanka wadamada shisheeye ka yimaadeen oo wadamada shisheeye lacagta ka keeneen ee gabdhaheena ku baabi'inayaan in laga hortago
oo micnihii karbaaska ah gabdhaha gurguuranaayo oo ilaa ay maslaxa soo koraayaan markay maslaxa soo koraayaan shumiska ay ka soo bilaabaan ilaa ay maaragtay markii ay maslaxa soo koraayaan shumiska ay bilaabayaan oo intaas ay ku soconayaan oo micnihii shumiska ay bilaabaan intaas uu yahay oo micnihii ilaa maslaxa ay koraayaan ninkii ay shuminayaan ay dhunkanayaan ee dhiidka laga tirtiraayo waxyaalahaas oo kalena ha laga joojiyo baraha bulshada waxyaalaha dadka waalaayo oo waalida ku ridaayo maskaxyarada ku ridaayeen hala joojiyo aniga baraha bulshada markaan soo galayay filinka aan ku soo galay waxay dhididka iga tirna aniga waxay ahayd wiil aan riwaayad u kala kicinayay oo gabar 12 jir doonayay oo aniga 20 jir baan ahay aniga ma ii guursan kartaa ya anigana micnihii aan ku soo galay koow arintaas maadaama aan ku soo galay arintaas waxay ahayd riwaayad wax lagu jilaayo riwaayad baana lagu jiraayay maadaama oo riwaayad la jiraayna riwaayada nooc walba loo qaadan karaa dhididka iga tir markaan leeyahay aniga oo kiyaalaha ii gali wariyaa dhaqso 9 shaqaale ii jooge wariyaa aniga 15 shaqaale ii adeego wariyaa aniga laandheere banaan degaanahay wariyaa aniga reer liita kama soo jeedo wariyaa aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo micnihii baraha bulshada magac iyo maamuus ku leh waliina magaceeda iyo maamuuskeeda aan ku dheelin sharafteeda aan gadan wajigeeda aan gadan waxa waaye maadaama oo miskiinada waxay igu baxday dhalinyarada ay bixisay baraha bulshada ku jirto yaa miskiinada ay bixisay waxay miskiinada igu bixisay miskiinada ay igu dhajiyeen maadaama oo aniga Canada ka imid oo aan iri wiilkan 20 jirka ah gabadhan 12 jirka ah doonaayo gabadhan 12 jirka iska dhaafo naag 20 jir ah loo hayaa oo guursanaya oo micnihii u dhaqmayso oo naag fiican ah oo sharaf leh oo qiimo leh oo qaayo leh markii aan leeyahay waa maraan micnihii anigu aan soo qaatay mid kale riwaayad lagu kala kicinayay riwaayadaas laakiin dadka inta badan waxay aamineen in 20 jir aan raadinayo 20 jir ma rabo mana u baahan mana doonaayo aniga alxamdulillah ninay qabo alxamdulillah waan ku qanacsanahay ninkeyga ma garatay waxaan idin sheegayaa oo kaleete aniga micnihii qof baraha bulshada ninka raadinaysa aniga ma ahay 20 jir mutacaafiya oo lixdiisa lixaad kaamil ay tahay oo aniga ilaahay qabiilna laandheeranimo meel u dhigay dadnimana meel u seexiyay baa aniga qaba been ma sheegayo markii u horeysana baraha bulshada 20 jir inaan ka raadinayo dadka aamineen laakiin waxa ma jiraan bal celin waxaan helay dhalinyaro is soo istaajisay oo ilaa 18 jir ilaa 17 jir oo soo istaagtay oo aniga idanaynaysa oo damacday inay teleefankayga helaan teleefankaygana si ay ku soo raadiyeen ba ay soo heleen intay soo raadiyeen bay soo heleen markay soo heleenna aniga waxaan arinina ay qaba xaasaan ahay meelaan deganahay qof xaasaan ahay marka waxaan idin sheegayaa asxaabta beedkan ku xiran inay ogaadaan in wax walba riwaayad lagu matalayo oo wax xaqiiqo ah aysan jirin waxaan karbaashkaana riwaayada lagu karbaashayaa midda odayaasha la karbaashayo iyo midda dhalinyarada la karbaashayo intaba asxaabay soo dhawaada sheer gareeya muuqaalkan waxaan idin ka rabnaa 1 milyan inaad gaarsiisaan